السلام عليكم رمضان الكريم waxaan rabaa inaan halkan fariin adag uga diro ama aan ka cambaareeyo dadka waayii dambe baraha bulshada ku soo batay oo rag iyo dumarka isugu jira ee raba inay jacaylka si qaldan u adeegsadaan ama ay siyaabo qaldan u isticmaalaan kalsoonida jacaylka maadaama aan ahay dhakhtarkii jacaylka ama nin aad iyo aad ugu takhasusay ama ugu xeel dheer dhanka jacaylka iyo arrimaha lamaanaha waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka idhaahdo barnaamijyada ama arrimaha waayii dambe kusoo batay baraha bulshada sida aad aragteenba in badan waad aragteen dumar calacalaya iyo sidoo kale rag iyaguna calacalaya oo lagu eedeynayo inay yacni maaragtahay lamaanahoodii ka duubeen fiidiyoyaal qaldan ama xitaa si wada jir ay iyagu u duubeen ayagoo markaas raalli isaga ah isla jooga kadibna ay raggii si qaldan u adeegsadeen oo ay ku rakaateynayaan gabdhihii markay kala tagaan. Haddaba waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka idhaahdo arrimaha noocaas ah. Horta marka hore fiidiyo qaawan jacayl laba qof oo isjecel fiidiyo qaawan ma dhex mari karaa? Jawaabtu waa maya. Fadlan ama gabar ahaaw ama rag ahaaw qofka ku jecel kaama codsan karo mana awoodo inuu kaa codsado fiidiyo qaawan. No, marnaba ha aaminin hana iska dhaadhacsiinin in qofku jecel oo fiidiyo qaawan ku weydiisan karo. Xitaa wax u dhow kuma weydiisan karo. Mararka qaar sawirka caadiga ah ayuu si xishood ku jiro ku weydiisanayaa. Sidee ku dhacday qofku jecel inuu ku dhaho fiidiyo qaawan ii soo duub? adiga ma qof yowmatid miya maxaa kugu dhacay? Suurtagal maaha. yuusan dareenku kaa tanbadinin. Waxyaabaha noocaasa waa dareen qofka gubaya ka helitaan baa la dhahaa jacayl lama dhaho. aan wax idin fahamsiiyo wala kale waa aragsan yahay anna waa laygu waa aragsan yahay anna dadka qaar baan ka waa aragsanahay. macquul gal maahan rag iyo dumar wuxuu rabaa ahaado in qof kaa codsado fiidiyo qaawan. inta badan ragga ayaa codsada. gabdhow dhageysta. ninka ragga ah ee ku jecel kuma quuro inuu fiidiyo qaldan ama kaa duubo ama uu kaa codsado. bal isaga laga yaabaa inuu kaa waaniyo waxyaabaha noocaas ah oo ku dhaabaayo iska ilaali dhibaatooyinkaas ad kala kulmi kartaa. waxaa kuu soo hartay gabadha wiilka jecel iyaduna kama codsan karto fiidiyo ama xitaa waxyaaba markaas ay nafteedu danaynayso waxay rabaan ha ahaadaan ilaahumay lacag ahaato xitaa lacag kama codsan karta gabadha. waa xaqiiqo. gabdhahan lacagta codsanayo arkis waxaas waa isku danaysi waa wax interestiyo labada qof ka dhexeeya waaye jacayl lama dhaha waxaas. qofka sida dhabta ah kuu jecel ee dhihiisa kaa jecel ma awoodi karo inuu waxay rabaan ha noqdaan inuu erayo waa laga yaabaa waa ku jeclaa dheh waxaas ii samey waxba la ii soo qoro inuu ku dhaho waa macquul inuu intaas kaa codsado laakiin wax ka weyn kaama codsan karo. waa jacaylka dhabtaan ka hadlayaa midka hadda oo baraha bulshada ka socda oo Soomaalidu inta badan waayihii dambe ay adeegsanaysa kama hadlaayo. fahmaysaan? nin baa 3 maalin ama 4 maalin baraha bulshada gabar ka baranaya wala qusus laabaayo waa kaa helaysaan waaye waa qurxoon tahay dabaad leedahay inta ka dhaco waaye xabadkaada ii soo sawir gadaal ii soo sawir waxaas waa qalad mamnuuc. war gabdho fiidiyoon kuwaana qaata. waran maadan arkina miyaa hablaha calacalaya. war raggiyo idinkana maxaa in ku dhacay wixiinu laabla kacmiyay noqdeen. gabar calacalaya markaad aragtaan waxaad dhahdaan gabadhan waa la helay saan waay nin baa saan u galay rag waa doqomiin aabaad leedin haddana saas tahay idinkii baa gabdhihii sii xumaynaya oo fiidiyo qaldan ka duubaya. ragga dhan maa waa ragga qaar. gabdhow idinka goormeed soo baraarugeysaan? goormeed joojinaysaan fiidiyoyaasha qaldan ee aad ragga u direysaan? miyaadan ka waantoobeynina miyaadan kuwaana qaadaynina gabdhaha 24 saac la silcinayo oo lacagta lagu rakaateynayo ee fiidiyoyaashoodii inta ama sawiradii qaawanaa laga hayo lagu rakaateynayo? war macquul gal maaha. waxaa kuu soo haray kuwa isqaba lamaanayaasha isqaba
maxaa lamaana isqaba ee qolkooda jiifka jooga ee sariirtooda saaran maxaa kaamira u keenay? bal kuwa qaar baa nalka iska damiya oo aan ogoleyn, inkastoo qaarkoodna ay iska caadi la tahay. sababtee video qaawan isaga duubi karaan? yaa lagu raali gelinaya videogaas? soo labada qof islama joogaan? soo iskuma kalsoona? soo waxay rabaan ma samayn karaan? videogan la duubayo muxuu ka turjumayaa? war asxaabi videogan share gareeya, oo mar labaad share gareeya, oo mar saddexaad share gareeya, gaarsiiya inta daawo doonta iyo inta hadda daawanaysa. sii share gareeya dhammaantiin, waa codsi. videogan waxaan rabaa gabdho badan iyo wiilal badan inay kuwaana qaataan, si uu usoo afjarmo ama loo soo afjaro waxyaabahan yacni maaragtay 24 saac iyo maalin walba iyo bil walba iyo sanad walba aan taaganahay ee la wareejinayo ee ah in gabar Soomaaliyeed laga oysiiyo video laga duubo. labada dhinacba hawaana qaataan. fadlan YouTube-kayga subscribe ii saara, videogan share gareeya, page-ka like saara. ruuxan suurtagal maaha wallahi. aad baan u qiiroodaa markaan arko muuqaalada qaaqaawan ee gabdhaha laga duubay ee gabdhihiina ay calaacalayaan. waa Snapchat-kayga uu kala baxay, Facebook. maxaa Snapchat-kaada geliyay video? war akhir zamaan baa lagu jiraa. war ilaahay ka cabsada. video qaawan ee xataa telefoonkaada inuu ku jiraa qalad ah, maxaad Snapchat-kaada kala doonaysaa? war Snapchat-ka waa aalad nin baa samaystay, waa wax qarrimi kara, si fudud baa lagaga jabsan karaa. wallaahi ilaah baan ku dhaartay telefoonkayga xataa inaan ogolayn sawir qaawan. war maxaa inka qaldan? war walaalahay baa tihiin, war waa inka naxaya, war waana qaata. war ragoo idinkuna joojiya fiidiyoyaasha qaawan ee aad gabdhaha ku rakaateynaysaa. xataa hadda gabdhaha qaar baa isdhahaa video ha u dirina, video call ku wac. war video callka laftirkiisa baa lagaa duubayaa, screenshot baa lagaa qaadayaa, sawirkii baa hadhow lagugu rakaateynaya. maxaa ka faa'iidaysaa? waxaase jacayl lama dhaho ee waa isku danaysi iyo dareen qofka markaas gubaya. qofka markii dareenkaas hadhow kulalkiisa uu daayana wuxuu noqonayaa qof iska caadiya, nolol caadiya kusoo laabanaya. qofkaas wax dana kama gelayo, kuma rabo, kuma soo wacayo, kuma soo raadsanayo. maalintii dareenkaas uu kusoo laabto unbuu kusoo laabanaya. waa xaqiiqo. hadalkaaskaygaa si fiican u dhuuxa. qofku jecel video iyo wax lamida kuma weydiisan karo, isagaaba laga yaabaa inuu ku awaanayo. videogan sii share gareeya, asxaab badan gaarsiiya, ilaa iyo waqtiyo badan baa la daawan doonaa. war aanu joojino, aanu ka waantoogno. maalin walba gabar calaacalaysa ma daawan karno. xitaa kuwiina isjecel, kalsoonida xaddaafkaa iska daaya. kalsoonidu waa wax lumi kara. dunida wax keliya ee aan mar labaad la helin waa kalsoonida. inta shay kasta laba shay bisan leeyahay, waa kalsoonida iyo naftu markay go'do. geerida iyo kalsoonidu sooma laabtaan, waa laba mar. qofku markuu dhinto naftu laguma soo celinayo, kalsooni luntana sooma laabanayso. inta kale jaanisyo labaad bay leeyihiin. u fiirsada bal idinkuba. war dumar oo aan ka waantoono. midda kale xiriirada dadka aad la sameynaysaan si fiican uga baaraandega, ha ku fududaanina. haddii aad mustaqbal leedahay oo aad guurdoon tahay, qofka aad mustaqbalka la wadaagayso waana si fiican uga fiirsataa. qofka aad ku kalsoonaanaysid waana si fiican uga fiirsataa. qof shala aad baratay sidee maanta ugu kalsoonaanaysaa? qofkan waa bini aadam. farxii kamid wixii jiro qofku waduur oo ninku waalan karaa, hasha u kala reeba. waa sax, naagtuna way waalan kartaa, ninkuna wuu waalan karaa. telefoonkan si kediisa qof uga qaadan karaa, saaxiibteed ama ninka saaxiibtiis. horta hebel uu ii dhibo, qof uusan markaas uusan ka shakinayn baa wixii arkaya wuu tuuran karaa, qof buu u diri karaa. dadku waa cadowyo badan yihiin. idinkana meel kastaba Snapchat aad gashateen, telefoonka baad ku shubateen. waxaas aqalgal maaha. markaas annagana leediin waa isjeclaan, xiriir baa naga dhexeey. waxaas xiriir iska daaye.
nacayb waxaan ku tilmaamna ma naqaan, waa aqli daro iyo yacni maaragtay cawaanimo. ilaahay baa idin caroonaya, malaa'igtiis baa idin caroonaysa. maxaa video qaawan ee aada nin kula jirto telefoonkaada geliye, maxaase snapchatkaada geliye? war ilaahay ka cabsano. arrimaha noocaas aad bay usoo bateen waayihii dambe. hadda aniga muuqaalkan sababtaan usoo duuba waxay tahay anoo wax daadaaban arka gabar aad iyo aada u calaacalayso video dheer soo duubtoo dhehaysa saan baa lee galay, saan baa leeyelay, ka dhacowgo ahaa. waxaas markaan daawaday sababta ay iyadu sidaan ku samaysay qof caqli qabta hadday ahayd, sababtaasaan la isweydiiyey. ana ninku waaba doqon kaas uuba sameeyaba ka soo tag. iyada markay sameynaysay xaggee meerkeedu jiray? war ninku qabana sidaa ha u aaminin oo ha ugu kalsoonaan. yes, ninka ku qaba waxyaaba waa jiraan oo diintu idiin banaysay, waa wadaagi kartiin. baari u noqo, raalliyo u noqo, wixii markaas naftiis ku qanacayso u sameey. si yacni maaragtay by telephone video la-aan ah, videoga jooji. maxaa video meesha keenaya? qofka inaad qancsaa rabtaa, inaad wax u sameysaa rabtaa, life waa is hortaagantiin, face to face waxa rabta u samey. videogan qofka lagu qancinayo ma shaydaan, qof saddexaad oo shaydaan baa loo duubayaa videogan? mise markay labada qof kala tagaan baa la rabaa in war waxaas xusuus xataa ma noqdaan? qofkan waa kala tagteen, waa idin kala dhamaad khalaas, xusuustaada niyadda ku hayso. war intiina miirka qabtow videogan ii sheergareeya, intiina xumaanta jeclow idinkuna daawada oo kuwaana qaata. aan ilaahay ka cabsano, aanu iska dayno weliba raggeenna. aniga intaan kow ka ahay dumarka aan u naxno, aan u dhimrino. waa hooyadeen, waa walaasheen, waa xaaskeen, waa gabadheen, waan guursan doonaa. maskaxdaa shaqayso rago. dumar oo idinkuna iska adkaada. sida walaashay aan uga naxayan gebigin kaga wada naxayaa. waan idin salaamayaa. videogan sii sheergareeya, youtube-kayga subscribe saara. waad mahadsantihiin 100% videogan intaad daawateen.